الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى وحان كبريا كلن كان إنو كدغو كلن بركيسن. إلهي سبحانه وتعالى waxaan ka baryayaa tawfiiqda inuu nawaafajiyo waxaan sheegayno iyo waxaan dhageysanayno inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigo mid ilaahay subxaanahu wa tacaala khaalisan liwajhi ah oona anfacdaha yowma laa yanfacu maalun walaa banuuna ila man ata allaha biqalbin saliim. maalinta ilaahay subxaanahu wa tacaala la hortaagan yahay ee qofna aanu qof wax u tari karin wixii uu camal la yimaado iyo qalbi khaalisa mooyaane wax kale uu ku badbaadaya aanay jirin. inay maalintaas mid aan ku badbaadino ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigo ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryayna. kelimadan kooban walaalayaal aan idinla wadaagayo waxa weeye sida cinwaanka aad ku aragteen, wax badan baa la isweydiinayaa dadku arrimuhu markay murgaan oo umuuruhu ay noqdaan umuuro adag oo dhib badan oo dadka fikir badan ka qaata, sida hadda dhibaatada dheeraatay dalkeena iyo dadkeena waa lagu wareeraa arinta. waxaana la isweydiiyaa ayna almakhraj, xaggee loo baxaa, maxaa xal ah, sidee maxaan u baahannahay si aan waxaas uga baxno ama dhibka aan uga baxno, maxaan u baahannahay ayaa la isweydiinayaa. waa su-aal qof walba oo ummadan ka mid ah uu isweydiinayo. ayeeshee haddii su-aashu saasay u timaado ama arinku uu saa u murugsan yahay, xaggee la weydiiyaa, yaa laga qaataa talada, fatwada xaggee laga qaadanayaa, xalka xaggee laga helayaa. xalka waxaa laga helayaa kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo sunnada nebigiisa calayhi salaatu wassalaam. xal kale ma jiro, meel kale oo xal wanaagsan laga qaataa ma jiro. iyaga wixi ay kugu hanuuniyaan iyo jawaabta ay ku siiyaan weye. ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa kan yiri yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha waatiicu rasuula wauli lamri minkum fain tanaasactum fi shayin faruduuhu ila allahi wاrasuuli in kuntum tu'minuuna biاllahi walyowmi اlaakhir dalika khayru waaxsanu ta'wiila. haddii aad tihiin hadalka nuxurkiisu waxa weye dad muslimiin ah oo mu'miniina oo ilaahay rumaysan iyo aakhiro dad rumaysan haddaad tihiin, arinka aad ku murantaan ama waxa aad isweydiinaysaan oo xalkeeda garan weydaan, ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiiya, macnaha kitaabkiisa weydiiya, sunnada nebigiisa calayhi salaatu wasalaamna weydiiya. halkaas ayaa marka hanuunka laga qaataa. ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu ya ayuha nnaasu qad jaa'akum burhaanu min rabbikum waanzalnaa ilaykum nuuran mubiinan. waxaan idiin soo dejinay xujo cad iyo nuur iyo iftiin waadix ah oo cad baan idiin soo dejinay. marka iftiinka wixii ka dambeeya dee waa mugdi. wixii iftiinka ka dambeeya, iftiinka haddii la diido mugdi baa lagu dhacayaa. famaada bacda alxaqi ila dalaal waman lam yajcal illaahu lahu nuuran famaa lahu min nuur. qofkaan ilaahay nuur iyo iftiin siin, waa iftiinka qur'aanka, waa iftiinka diinta, waa iftiinka sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam, iftiinka xadiiska. qofkaan ilaahay subxaanahu wa tacaala nuurkaas iyo iftiinkaas aanu siin, cid wax u qaban karta maleh. cid nuur siin karta iyo iftiin siin kartaana ma jirto. ma garanaysa. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala nuurkiisa iyo iftiinkiisa ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryayna. hadalka haddii aan soo koobo, 3 shay bay soomaali u baahan tahay si dhibkan looga baxo. hadalka haddaan soo koobo, 3 shay oo qur-aanka kariimka ah uu tilmaamayo ayay u baahan tahay. mid walbana waxbaa kasii farcama, wax yar baan ka tilmaami doonaa in sha allahu tacaala, ma ku dheeraanay. waa midda koowaada soomaali u baahan tahay, waxa weeye musaalaxa maca allahi. soomaali inay ilaahay horta la heshiiso ayay u baahan tahay.
waa laga yaabaa inaad hadhow isweydiisaan ma ilaahay bay la dirirsan tahay, jawaabteeda waa ka hadli doonaa. laakiin waxay u baahan tahay Soomaali kow waxay u baahan tahay oo dhibkan uga bixi kartaa inay ilaahay la heshiiso, waana caddayn doonaa. midda labaad waxay u baahan tahay si dhibkan ay uga baxdo dheeraaday oo daba dheeraaday ee lagu murugsan yahay ee lagu yacni wareersan yahay inay dhexdeedana ka heshiiso. waa qodobka labaad. kow waa inay ilaahay la heshiiso. labo waa inay iyadu dhexdeedana heshiiso. laba ma tahay, mid saddexaad keliyaan ku darayaa keliya bes. midda saddexaadna waxa weeye inay markaa dowlad dadka heshiiska ah ilaahayna la heshiiyey iyaguna heshiiyey dhexdooda inay dowladnimo dhab ah oo arkaantii ay ku dhismi jirtay dowlad dhab ahi ay ku dhistaan. intaas saddexdaas arrimood faahfaahintooda haddii aan hoos u imaado mar kale aan kusoo celinayaa, si fiican u dhegeysta warkaa dhuuxa. kow horan marar badanna waa la sheegay, aniguna waa sheegay, culimo badanna waa sheegtay. kow Soomaali waxay u baahan tahay inay ilaahay la heshiiso. labo waxay u baahan tahay inay iyadu dhexdeeda heshiiso. saddexna waxay u baahan tahay in markaas ay heshiisyadaas dowlad dhab ah oo dhidibadu u aasan yihiin oo arkaantii saxda ahayd ku taagan inay markaa dhisato. saddexdaa qodob ay u baahan tahay. aan usoo noqdo marka tafsiilkooda wax yar aan ka iraa. Soomaali waxaad leedahay waxay u baahan tahay kow inay ilaahay la heshiiso. haa saasaan ir marka su-aashay maraysa waxa weye ilaahay miyay la dirirsan tahay? haa, sida anigu aan isleeyahay ilaahay baynu la dirirnay. ilaahay la dirirdiisuna ma dhoweyn, waqti fog bay inagu soo bilaabatay. muxaadaraad horaan ku sheegay, muxaadaraad kale waan ku sheegay. ilaahay baynu la dirirsannahay, heshiis lama nihin. marka aan leeyahay dib u noqda, taariikhdan dib u noqonaya, waxaa laga yaabaa dhalinyaro badani inaanay iyagu aanay maanta ogeyn. Soomaali waa dad muslina, yacni xanuunku goortu qofka kusoo bilowda hal mar ma soo rito, tartiib buu usoo socdaa. isticmaar baa Soomaaliya kala qaybsaday, gaaladii reer Yurub, Burtuqiis, Talyaani, Ingiriis, xabashiyo dhinacyo ka xunaysay iyo wixii iyaga daba socda ayaa kala qaybsaday. isticmaarkii dadkaas muslimka ah ee meeshaa degan ee goobtaa degani waa ka didiyeen, waa ka dagaalameen. islaamnimadoodii iyo xornimadoodii iyo gobonnimadoodii bay kula dirireen. ha, koonfur baa lagala diriray, waqooyi baa lagala diriray, meel kastaa lagala diriray. jihaadkii dheeraa waynu xusuusanaa taariikhdeena ay soo galeen dadka Soomaalida. muddo kadib markaa ilaahay subxaana wa tacaala isticmaarkii uu ka dulqaaday. gaaladii waa guurtay. Talyaani, Ingiriis wuxuu ahaa waa guuray, Burtuqiis 1960kii ayay waqooyiga iyo koonfurta ay xoroobeen. wax yar bay kala horeeyeen. 26kii Juun 1 Juulaay baa ugu dambeysay gaaladii ay darmooyinka ka laalaabatay. darmooyinka markay laalaabatay maxaa dhacay marka? Soomaali ilaahay nicmadaas uu galay. hal xaadisaan ka xusuusanayaa waa taariikh. dadkii joogay baana igu yiri, anigu sheekada waxaan ka werinayaa Generaal Maxamed Abshir Muuse, Allah u naxariisto. wuxuu ahaa saad ogtihiin odayaashii Soomaaliyeed ee caanka ahaa. wuxuu ahaa taliyihii booliska Soomaaliyeed lixdameeyadii, generaaladii u horeeyay Soomaali ayuu ka mid ahaa. ilaahay u naxariisto. dowladdii shibilka ahayd ee 60kii dhalatay ee kacaanku riday ayuu ka mid ahaa. wuxuu igu yiri Maka ayuuna warkaas iigu sheegay. magaalada Maka ee barakaysan. wuxuu yiri marigii dowladdii aanu ku jirnay ayaa niman culimaa, weliba hal nin oo sheekh ah buu iiga sheegay. wuxuu yiri ninkaa sheekhay madaxweynihii buu u tegey
dalka markaas waxaan filayaa aadan cabdulla cismaan allahu naxariiste inuu ahaa madaxweyne. wuxuu yiri sheekhu wuxuu yiri walaalayaalow madaxweynow dowladey haddii aynu ilaahay isticmaarkii inaga qaaday oo gaaladii ilaahay inaga qaaday ina dul fadhiday dad muslinaynu nahaye dowladeena kitaabka ilaahay iyo sunnada nabigiisa calayhi salatu salaam aynu ku salayno kitaabka ilaahay aan ku soconno isaga aan isku xukunno. sheekh warkaasuu soo jeediyey waa hadalka jenaraal maxamed abshir muuse wuxuu yihi madaxweynuhu wuxuu yihi waayahay war fiicane meeshan waxaa jira muasasaad iyo nidaam ra-iisul wasaareha jira ra-iisul wasaarahana waxaa kasii hooseeya wasiiro waxaa jira barlamaan marka ha soo marto halkaas buu yiriyo arrinkii sheekha wuxuu ku soo wareejiyey ra-iisul wasaarihii ra-iisul wasaarihiina wuxuu sameeyey guddi buu yiri buu sameeyey sheekha dhegeysta oo la kulma oo arrinta la fanqayo. wuxuu yihi guddigii uu sameeyey ra-iisul wasaaruhu ama prime ministerku ayaan ka mid ahaa xubin ka mid aan ahay waa taliyihii booliska mogtahay generaal maxamed abshir muuse. hadalkaasna anuu ii sheegayaa anaa ka wariya dhegteydaasaan kaga maqlay yowm alqiyaama isu taagay. wuxuu yihi marka anigu xubin waxaan ka noqday guddigii uu prime ministerkii soomaaliya markaas magacaabay oo yihi sheekha la kulma. dhowr xubnood baan ahayn sheekhi baan la kulanuu yihi sheekhi waa noo yimi wuxuu yihi sheekhi wuxuu yihi arrinkiibuu noogu celiyey wuxuu yihi ilaahay isticmaalka waa naga qaaday gaaladii hadday naga guurtay oo dowladnimo soomaaliyeed inoo dhalatay waa inaynu kitaabka ilaahay isku xukunaa dad muslinaynu nahay dad soomaaliya oo muslina baynu nahay oo sunno ah oo shaaficiye ah aynu isku xukunno kitaabka ilaahay. sheekhi saasuu yiri waa dhegeysanay buu yiri aniga buu yiri maxamed abshirah markaas buu sheegaya aniga maxamed abshirah waxaan la yaabanahay buu yiri markaa diinta waxba kama aanan aqoon buu yiri diinta wax aan ka aqoonay ma jirin waxaan la yaabanahay buu yiri wadaadkan leh qarnigii 20aad 20th century kitaab 15 qarni 14 qarni ka hor soo degay kitaabka quraanka waa muslim baa waa ictiraafsanahay laakiin xukun soo degay dhowr iyo 10 qarni ka hor sidee qarnigii 20aad la isugu xukumaya wadaadku mariyoonaya mase waa wuxuu ka hadlaya xagee ka hadlaya sidee u hadlaya sidee xaalkiisu yahay ayaan isleeyahay. marka gadaal buu ka fahmi doonaa jenaraal maxamed abshir muuse ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariistee waa kii xabsiga maxamed siyaad barre geliyey kadibna uu muddo xabsiga ku jiray xabsiga culimuu kula kulmay dad badan kula kulmay qur-aankii buu xifdiyey anaa taasna ka markhaati oo qur-aankii iyo cibaadadiisii dambe saasaan ku arkay ilaahay subxaana wa tacaala dhammaantood baa u naxariisto. marka wuxuu yihi aniga waa la yaabanahay waxaan leeyahay wadaadkan leh qarnigan hadda hala isku xukumo kitaabka xagee buu ka hadlayaa waa taliyihii booliska soomaaliyeed markaas jenaraal maxamed abshir ragga kaloo la fadhiyana waa wasiiro iyo xubno uu prime ministerku markaas soo magacaabay waa dowladii 60kii dhalatay ee dimuqraadiga ahayd. wuxuu yihi wadaadkii waa dhegeysanay xoogaa baan u sheekaynay waa yahay baan niri waana isdhaafinay waa isdhaafinay warkii halkaas ugu dambeeyey laakiin wadaadku khayr allah siiye wuu gutay waajibkiisii wuu gutay xujadiina wuu ku oogay ee nimankii markaa madaxda ahaa ee hoggaanka ah. waa soo socotay dowladdii sidaas ahayd maadaama kitaabkiina ay diiday xoogaa bay socotay 1969kii waa tii afgembiga ciidamadu ku sameeyeen ee generaal maxamed siyaad barre uu yimi allah u naxariisto iyo ciidamadiisii uu watay iyaga xukunkii la wareegay xukunkii dimuqraadiga ahaa iyo dowladdii markaa rayidka ahayd waa tii la xaaqay kulligood xabsiyada loo xaaqay raggaas markaa ka sheekeynayo. run ahaantii anigu waan arkayo lacalla inay khayr ba u ahayd anigu waxaan arkay jenaraal maxamed abshir allah u naxariisto waxaan arkay madaxweynihii ama ra-iisul wasaarihii prime ministerkii markaas ahaa maxamed xaaji ibraahim cigaal
ilaahay ha u naxariisto markii dambena somaliland madaxweynaha ka noqday labaduba diinta xabsigay kusoo barteen xabsigii maxamed siyaad barre geliyey dhinac kale khayr buuba u noqdayo tafsiirkii bay bateen oo qur-aankii bay anigu haddaan hadda dhegaystay mararka qaarkood yani maxamed xaaji ibraahim cigaal sida uu u fasirayey qur-aanka ama aayadaha qur-aanka uu soo qaadanayey madax badan iyo siyaasiyiin badan oo tiro badan 90% ayaan una fasiri karin bal culimada qaarkeed baan u fasiri karin siduu u fahmay oo kitaabku u fahmay marka khayr bay u ahayd arrintaas oo sheekh maxamed macalin iyo rag lamida ayay maaragtay dee xabsiga ka heleen oo maxamed siyaad barre uu xiri doono markii dambe ilaahay subxana wa tacaala ha u naxariisto dhammaan dhulka hoostiisay maanta jiraan dowladdii waa la afgembi tii waxaa timi kacaanka tii kacaanka waxay ku bedeshay nidaamkii ay qaadanaysay waxay tiri waaba ka dartay ka daro dibi dhal waxay tiri waxaan qaadanaya nidaamka ishtiraakiyada cilmiga ah hadda ka hor baxi aan ku sameeyey buug baan ka qoray nin sheekha oo ciraaqi ahaa oo la dhihi jiray sheekh maxamed asawaaf baa la dhihi jiray ciraaqi buu ahaa reer baqdaad culimadii ciraaq buu ka mid ahaa laakiin sacuudiga iyo maka ayuu ku noolaa waa yadii dambe cimrigiisi dambe 70-yadii 60-yadii xaggaas ku noolaa 80-yadii aqalkeeda buu dhintay ilaahay u naxariistay anigu waan arkay sheekha sheekh maxamed asawaaf kitaab uu qoray buu wuxuu kaga sheekeynayaa 74 meelahaas ayuu wuxuu yimi dalka Soomaaliya waxaan la kulmay buu yiri madaxweynihii Soomaaliya markaas waa maxamed siyaad barre Allah u naxariisto wuxuu yiri waxaan ku iri madaxweynow markaas isaga boqor Faysal baa soo diray oo dalalka islaamka ku wareegay oo markii la sameeyay munadamadan OIC da la yiraahdo Organization of Islamic Cooperation baa hadda loo yaqaan Unity markii hore la dhihi jiray conference baa la dhihi jiray markii hore OIC da marka sheekhu wada dalal badan buu maray Soomaaliya waxaan ku iri buu yiri madaxweynaha markaan la kulmay madaxweyne waxyaalo badan oo idaacadda wadanka aan ka maqlo wax in ilaahay raali gelinaya ma aha Karl Marx maxaan ku Angeles Lenin shuuciyad waxaas la amaanayaa buu yiri dalkan dal muslina idinku dad muslina ayaa tihiin waxa kan madaxweynuhu kelimad bay kaaga baahan tahay in wax laga toosiyo markaas wuxuu igu jawaabay buu yiri waa sheekh maxamed sawaaf iyo maxamed siyaad barre oo kulmaya kulligood waa dhinteen Allahu naxariisto wuxuu igu yiri annaga ishtiraakiyada yadu waa ishtiraakiya Soomaali maaha ishtirakiyadaas aad u malaynayso yaa hanti wadaagaas ma aha oo aad u malaynayso gaalnimada waa hanti wadaag annaga Soomaali waxaan ku iri buu yiri madaxweyne kala daa hanti wadaagaas iyo ama ishtirakiyada iyo shuuciyada iyo islaam kala daa madaxweyne isma galaan baan ku iri على كل حال شيخ ساس وسنا النسيحيي وسوس عتي أرنتو كن سجال بقول شن تضباطنكي وكي بش جنوري كل واقعي مدحوينه ومحمد سياد برئه قانون كي اللي به جري حيرك قويسك واحد بدن بعد ميله هذا أقول نقول كرتان شيكوين كيسة كدبنا واتيع لما بدني كهرتمي culimadii marka ay yiraahdeen dhaxalkan lama bedeli karo aayadahan lama bedeli karo dumarka rag baa ilaahay baa u qaybiyay lidhakari mithlu hadd al-unthayayn ilaahay baa subhanahu wa ta'ala yusiikum Allah fi awladikum lidhakari mithlu hadd al-unthayayn fa in kunna nisaa'an fawqa ithnayn falahunna thuluthu ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisf warwa qanun ilaahay jidayay oo gabadhan uu ilaahay subhanahu wa ta'ala leeyahay isla aayada bal fiiri bilowgeeda lidhakari mithlu hadd al-unthayayn soo lama oran yani laba dheef ay qaato gabadhu qaadato baa wiilku qaadanaya labadeed haddana aayada jumlada ku xigta waxa weeye haddii ay laba yihiin fa in kanat ithnaytayn falahuma thuluthani mimma tarak saddex meelood laba meelood bay qaadanayaan gabdhaas hadday mid tahay wa in kanat waahidatan falaha nisfu xoolay abeed nisf bay qaadanaysaa mar bay nisf qaadanaysaa marna waa hadal unsayn marna thuluthayn bay mushtarak ku tahay oo ku shirkoobaysaa war waxan waa qayb ilaahay qaybiyay oo xikmad iyo cilmi iyo aqoon allihii abuuray uu ku qaybiyay ka daayaa la yiri
maya culimadii 10 baa la dilay subaxda la dilayo dadka waxa lagu qaadi jiray qofkii la dilayo sida nimankii xataa kacaanka kamid ahaayo la laayay waagaas qofka la dilayo dhalinyarada hadda soo gaartay ma gaarine kacaanku hees buu ku qaadi jiray hees baa lagu sagootin jiray samadiidow dabin baa ku qora lagu daldali doono miyaad mesela lagu dabi doono ha heestaas hadaad ka dhageysato oo aad maqasho idaacadda radio muqdisho maanta aad ka maqasho macnaheeda waxaad ogaanaysaa maanta dad baa la daldalaya ciday taayba maanta samadiidow dabin baa ku daban ama ku qoran lagu dabi doono marka maanta waxba qoran anigu markaas waa bishii February ayaan filayaa 1975 waa markaan ololaha ka soo noqonaynay ololihii reer miyiga farbarida afka Soomaaliga oo anigu Jowhar baadiyaheeda magaalada Doomcadi la yaatuulo Doomcadi la yiraahdo dhanka galbeed ka xigta magaalada Jowhar ayaan joogay muddada sanadka 1974 ila 75 ka bilowgiisii magaalada Jowhar baan imi markaas makhaayad anoo wax ka cunaya ina yar baan ahay markaa 16 jir meelaha 15 jir iyo xogaa 16 jir baan ahay ayaan wax makhaayad wax ka cunayo ayaa heesta lagu dhiftay dharag warkii bay ku soo gashay mase maanta waxa la dilay culimadaas 10 ka ah tiirka la geeyay waa la dilay isla maalintii saad ogtihiin laba diyaaradood oo kacaysay oo diyaaradaha militariga ee miiga ah xaafadda waa beri ayay ku soo dul dhacday inta u dhaxaysa dabka iyo dhanka jidka waa beri ilaa iyo sayidka meesha taaladiisu ahayd sokadeeda ka sokaysa halkaas waa beri buurka intaasay labadii diyaaradood mid ku dhacday guryo badan iyo dad badan ayay la tagtay mid kalena badda ay ku dhacdaan filaya labada diyaaradood isku dhaceen roob aad moodo oohin inuu yahay baa la yiraahdaa maalinta soo degay soo dad magaaladana ku soo tixtixa ah ayaa ku soo dhacay magaalada sax weeye Soomaalida qaar way sacabtumayeen qaarna way culimadii la dilayay ayay u sacabtumayeen waa la daawan jiray oo iskoola bulisiya meesha ay ku taalo bacaadka weyn oo buurka halkaas dadku soo dhooban jireen meeshaasana dadka lagu toogan jiray dil lagu xukumo culimadii halkaas lagu dilay Soomaalina way daawanaysay culimadaasuna ilaahay bay u ashtakoonayeen ashtakadoodiina waxaan shaki ku jirin ilaahay inuu maqlay shaki igama jiro inuu ilaahay dhageysanayo maxaa dhacay qof kasta oo madluum ah ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo dhaxdiisa qofka madluumka kuma jirto haba yaraate wax xijaab ah ليس بين الله وبين دعوة المظلوم حجاب أبدا حجاب كما جروا النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال هدويا قال اسكداف مسلم اسكداف من مسلم عالمة اسكداف وقال هدويا هي او مظلوم يهي دعالي سامة باركيسو إلهي لقم عليو البابكيس ما حدا إلهي ظلمي ما تشعله إلهي ظلمي ما تشعله علماء طوبان عالم الإسلامي يردن كما دعين فيري شيوعيات بقى waxay ka dhalatay ishtiraakiya Suuriya شيوعيات way ka dhalatay Itixaad Sovieti ama Soviet Union kala raacay Masar Soviet Union ka waxa la raacay Iraq Soviet Union ka waxa la raacay Libya waxa soo dhan dawladaha Carabta kulli way ka dhalatay cid ku dhiiratay culimo waa la xiray waa la waxeeyay cid ku dhiiratay 10 culimo ah oo yiri war waxa kan kitaabka Ilaahay bay qaabsan 10 culimo ah cid ku dhiiratay aan Soomaaliya ma jirin subhanallah ma jirin soo taariikhda dib ugu noqda waqtigaas 60meeyadii 70meeyadii oo shuuciyada iyo Itixaad Sovieti ay qaadatay adduunka cid ku dhiiratay ma jirin aan Soomaaliya taliskii Soomaaliya markaa ka jiray hayna militariga 10kii culimada ahaa maxkamad iyagoon loogu doodin iyagoon shacab u doodin iyagoon cid isweydiin iyadoon cidi isweydiin iyadoon Soomaali qabaa'ilkeedii waxba aanay iska oran shacabkeedu waxba iska oran durbaanka la tumayo ayaa 10kii culimada ahaa subaxdaas 1975kii taliskii militariga
ee uu hogaaminayay jenaraal maxamed siyaad barre ee golihii sare ee kacaanka ay ka mid ahaayeen ee wasiiradiisa ka mid ahaayeen qaar baa nool qaarkii dhinteen allah u naxariisto dembigooda allah dhaafo ilaahay subxaanahu wa tacaala baan leenahay qaarna weli nool yihiin dembigaas waa la galay waa tagtay ilaahay qur'aan kariimka wuxuu leeyahy walaa taxsabana allaha gaafilan cama yacmalu الظaalimuun ha u malayn ilaahay inuu gaafil ka yahay ظaalimiintu waxay samaynayaan inamaa yuakhiruhum liyowmin tashkhasu fiihi اlabsaar maalin buu u dibdhigayaa ilahay baa kala xisaabinaya waa tageen laakiin fitnadu hadday timaado dadkao dhan baa la ysku xaaqaa walaalayaal wakti badan ma soo wareegan arrinkaas wuxuu ahaa yani meelahan ku tilmaamaya markii hore dowladda rayidka waxay diiday kitaabkii ilahay inay ku xukunto soo maaha military baa yimi oo waa xaaqay soo maaha dowladdii military baa timi soo maaha waxay kusii dartay shuuciye inay qaadato oo ay maaragtay culimadii layso soo maaha waa shacbigeeduna u durbaantubay soo maaha arrinkaasu goormay la heshiisay marka soomaaliya heshiis ma dhicinba markii taliskii militariga dhammaaday oo la riday maxaa ka dambeeyey ar muqdishooy maxaad war haysaa ar soomaaliyey maxaa war kugu duugan ar dhulka soomaaliyeedow maxaa war kugu duugan show haddii ciidda magaalada muqdisho haddii la wareysan lahaa ilaa 60kii ilaa maanta wax sooma 50kaa sano wax badan bay mindhaa ka warrami lahayd ciiddu hadli lahayd laakiin waktigeedii lama gaarin hadda inay hadasho ciiddu hadda ma hadasho wixii maxamed siyaad barre iyo taliskiisii midba midda ka dambeeyo bay ka daran tahay fiiri midba ka dambeeya ka daran tahay wax ka daranaa imaaday wax ka daran oo tiisi iqarsaba noqotay ya magaalada muqdisho in dhiigu saa u daato dhiigu inuu saa u daato magaalada inay dunto ilaa hadda xataa ay dunsan tahay wakti aan fogeyn baan soo maray xamarweyne iyo shingaani wakti aan fogeyn 6 bilood maa laga joogaa mas meelahaas ya bishii shanaad sanadkii hore waa sanad taqriiban sanad ama ka yar waxaan soo maray dhulkii aan mari jiray waagaan yaraa muqdisho aan joogay aan iskuul ka dhiganayay cisbitaal martini ka imow xeebta jidkeeda soo mar boostadii hore oo 70-yadii meesha boostadu ahaan jirtay waagii dambe jidka jubba iyo agteeda loo raray had markii dambe xagga ahaan jirtay ayaan soo maray matxafkii hore meeshuu ahaan jiray halkaas soo maray waxaan kusoo dhacay cafe national meeshii ahaan jirtay isgoyskii oo dhankan shangaani dhankan xamarweyne dhankan kuraaji dilsuud iyo afridood iyo aad aadayso dhulkii waa dunsan yahay waa baaba'san yahay waxaa ka muuqda yani ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka kariimka ah wuxuu noogu sheegayaa fatilka buyuutuhum khaawiyata bima dalamuu ina fi dalika laaayata liqowmi yaclamuun aayad qur'aana baa waxay leedahay bal guryahoodii waa kuwaase adiga u fiirso waa guryahay madaxdaas ku jiri jireen meesha hotel curuba soo mar halkaa ka soo bar guryahoodii u fiirso buu leeyahy ilaahay subxana fatilka buyuutuhum khaawiyatan waa maran tahay waa dunsan tahay ya khaawiyatan bima dalamuu bisabab dulmigii dhacay ilaahay subxaanahu wa tacaala aayado badan buu wuxuu ku tilmaamayaa dulmigu inuu dhulka halaago baabi'iyo dadka halaago ummadaha halaago tii hore ka daranaa maxamed siyaad ka daranaa dhacday qabiila laysu dilay wiilkii abtigiisuu dilay wiilku abtiga u ahaa baa dilay in adeerkiisuu dilay dhulkiisiibuu dhacay gabdhahoodii baa la kufsaday xoolihii baa la kala dhacay dhulkii baa la kala dhacay guryihii baa la kala dhacay dhiiggii baa lagu farxashay waa dhamaatay ilaa iyo 90kii baa lagu jiray goorma laga heshiiyey ama ilaahay lagala heshiiyey ma ii sheegi kartaan yaa iiga jawaabi kara saas darteed baan waxaan leeyahay soomaali maxaa ka dambeeyey wixii kale oo madaalim ahaa kama aanan sheekaynin waxaa ka dambeeyey warlords baa isu yimi
siyaasiyiin baa isu yimid jagadoon ah iyagaa dhexdooda waxay ku heshiiyeen jagooyinka siday u qaybsan lahaayeen qabiil shaqo kuma lahayn wuxuu ka helay male caafimaad kama helin waxbarasho kama helin biyo kama helin baad kama helin waxba kama helin ya diyaarada kama helin lacag kama helin maxay qabaa'ilku ka faa'iidaysteen 20 sano wixii dib u heshiisiin baa 15 shir oo Ethiopia iyo maaragtay lagu qabtay Kenya iyo Djibouti maxaa dadka Soomaaliyeed ma heshiiyeen iyagu shacabku ummadda Soomaaliyeed ma isu timi geed ma wada fariisatay ma ka heshiisay ma ka cadaalad ma u kala xukuntay oo ma la kala garbaxay waa la diriray waa la isdhacay dhiig baa la isu geystay waa la kala qaxay waa la kala irdhoobay ilaa iyo New Zealand qoraxdu meesha ka soo baxdo baa laga soo jeestay ilaa iyo Seattle baa dadku orodkii qaar ayeen istaagin marka ummadii saa u kala yaacday gudo iyo dibad goorma isu timi goorma yiis ilaahi subhanahu wa ta'ala dhulmigaas laga galay goorma ilaahi laga heshiiyay marka anigu waxaan leeyahay kow Soomaali waxay u baahantay in ilaahi la heshiiso horta taariikhdaas waxaan isugu soo kiin xiray inaanu jirin heshiis ilaahay lala galay oo la yiri ilaahay tooba oo barlamaanada laga ilaaniyay oo siyaasiyiintu ilaaniyeen oo odayaasha qabaa'ilku ilaaniyeen oo qabayladu qirteen war anagu dulmi baan galnay war anagu waanagtay waa is dulminay waa is dilnay walaalayaal waan is cafino aan wixii garka xisaabtano aan maaragtay qofkii mag lagu leeyahay magta ha bixiyo waxba lagu yaqaana maxkamadda dib yimaado cadaalad baa islaamku kala baxa ama qofka wixii sibaad oranaysaa waa ka waxaagi ama waxaad oranaysaa walaalay way cafi ma hayo wax laga heshinay ilaahay markaas toobadaada aqbali toobadaada markaas ilaahay aqbali ilaahayna waxa la dambiga ilaahu ka galay ilaahayow iga cafi marka horta Soomaali waa inay ilaahay la heshiisaa ilaahay inaynu la heshiino baynu u baahanahay qodob labaad markii ilaahay la heshiiyo oo ilaahay loo toobad keeno oo banaanada loo soo baxo fagaarayaasha iyo garoomada aan u soo bax Muqdisho ka soo bax oo Kismaayo ka soo bax oo Garowe ka soo bax oo Hargeysa ka soo bax oo Burco ka soo bax oo Baydhabo ka soo bax oo Buuraxaawo ka soo bax oo waxa tirahdaan oo Baardheer ka soo bax oo Beledweyne ka soo bax ya ilaahayow waa ku toobadkeen ilaahayow waa ku toobadkeen bilaaba qof loo soo baxo qabiil loo soo baxo siyaasad ahaan iyo dawlad ahaan loo soo baxo ilaahayow waa ku toobadkeen ilaahayow kitaabkaagaan u qaadanay ilaahayow diintaadaan ogolna ilaahayow xukunkaagu wuxuu yahay baan ogolna ilaahayow adigu naga dulqaad dhibkan adaa qaadi kara laysa min duuni illahi kaashifa ilaahayow adiga qaadi kara cid kale ma qaadi karto wallahi na cid kale qaadi kar dhibka Soomaali haystay kale u dhow cid kale ma qaadi karto ilaahay ahayn ilaahayna wuxuu u baahan yahay inaad u noqoto buraba ilaahay uu jecel yahay Soomaali waa dad muslina dadka muslimkaana ilaahay waa jecel yahay dambi kasta oo ay galaan ilaahay waa jecel yahay marka ilaahay wuxuu rabaa inay dambi ka soo baxaan oo soo noqdaan waa lagu sii adkeynaya gaalnimo wax lagu ma siinayo ilaahay ka cararaan wax lagu ma siinayo taas waa qodob koowaad oo Soomaali u baahan tahay inay ilaahay la heshiiso waan cadeeyay meeshaynu kula dirirnay iyo inaan wali heshiis jirin mid labaad waxa weey in iyadu dhexdeeda ka heshiiso dhexdeeda inay ka heshiiso markaad ilaahay la heshiiso shardi waxa u ah heshiiska ilaahay inaad dadka walaalaha la heshiiso oo xoolahooda celiso oo wixii aad idin kala gaaray aad ka heshiisaan oo iscafisaan ama kala qaadataan oo kala ceshataan hadday tahay guryo hadday tahay dhul hadday tahay beero hadday tahay dhiig waa in lagu kala baxaa waa in la yiraahdaa okay in guryaha hebel intaan naga qabtaan geed kale oo fariistaa maxkamad la dhigaa maxkamad in la dhigaa maxkamad goorma maxkamad la dhigaa maxkamad shacbiya waa inay dhacdaa culimad la keena kitaabka ilaahay lagu kala baxaa annagu wadaan reer hebel ma haysana haye waaya halka soo fariiso anna reer hebel halkaas anigu waxaan haystaa hebel iyo hebel halka soo fariiso maxkamadda lagu kala baxo waxaad ku sheeganaysaa albayanatu cala man iddaca walyamiinu cala man inkar
haddii aad hayso caddayn u hayso wixii aad dadkan ka sheeganayso caddaynteeda keenaysaa yaa dhulkaana layga dhacay gurigaana layga dhacay dhiiggaana layga galay caddaynteeda keen haddaa caddaynteeda keen weydo dhaar baad ku leedahay waa inuu kanu dhaar maraa inaanu waxaa samayn oo aanu waxaa qabin albayinatu calaa man iddaca walyamiinu calaa man ankar kitaabka ilahay saasaa loogu kala baxayaa markaasaa dadku heshiiyaa markaas baa dadku heshiiyaa dadku dulmi bay kala sheeganayaan dadku dulmi bay kala sheeganayaan soomaali dulmi bay kala sheeganaysaa waa kala irdhooda waa kala tagtay qolo walbi waxbay sheeganaysaa waa in la heshiiyo oo laysaga yimaado oo laga xukun tago maxkamad waa inay dhacdo arrinkaasu waa arrin cadaaladda islaamka sidaasay ugu dhisan tahay laakiin anigoo lay dulmiyey oo haddana u jeeda kii i dulmiyey iska dhaaf in la ii qabto ama wuxuu igu dulmiyey xaqaygii la iga qaadee abaalgud baaba waxaa looga dhigay xoolo iyo jago yaa sameeyey soomaali baa samaysay inagaa samaynay dembiyada ilaahay laga gelayay ka mid tahay kuwii dulmiga sameeyey ilaahay baan idinku dhaarshay qabaa'ilkiina ma dhex joogaan maanta oo idinku ma difaacaysaan mase maya jagooyin ma ugu abaalguddaan mase maya xoolo ma ugu abaalguddaan iyo magacyo mase maya haddaan been sheegaayo idhaha waa beenta ii sheega war intanaanu ku soo gaarnay soomaali dhexdeeda waa la socnaa waxba soomaali xataa wixii gaaladu ay samaysay bay samayn kari weyday iyagoo muslima gaaladu waxay sameeyeen fiiri Rwanda waxaa ka dhacay genocide ama waxaan isdilka dadka isxasuuqeen haye waa isxasuuqeen soo ma waa isxasuuqeen xasuuqii inta aan dowlad iyo nidaam iyo waxba la gaarin waa laga heshiiyey dadkii xasuuqa ka qayb galay waa la soo taagay maxkamadaha la keenay wax loo haystay maxkamadaha la keenay meel baan ka akhrinay 3,000 iyo siyaado qof oo dagaal oogayaashi xasuuq wadayaashii isbaaroleydi dadkii dadka dhibay dadkii dadka dhiigooda galay dadkii dadka xoolahooda dhacay dadkii dadka dhulkooda dhacay ya waa la soo qabtay meel baa la soo tubay Hutu iyo Tutsi waa laba qabiil kaliya cidda yihiinba meel baa la keenay waa lagu soo ururiyey kadibna waa la muxaakamay maxkamad baa la mariyay dadkii dulmanaa oo qofkii dhiigiisa la daadiyay oo waalidkiisa la dilay oo ilmihiisa la dilay oo reerihiisa la dilay oo xaasaskiisa la dilay ama gabdhooda la farax xumeeyay lagu xadgudbay oo muslimka kula ah oo jooga oo kii sameeyay oo qabaa'ilka dhex taagan yahay oo dadkii sameeyay qabaa'ilkooda dhex taagan yihiin oo loo abaalgudayo jagooyin loogu abaalgudayo ilaahay baan idinku dhaariyey ma ilaahay baan naxariis ka sugaysaan say ugu sugaysaan naxariis ma suurtagal ma idan waa inay dadku ka heshiiyaan oo dadkan shir geed hoostiisa Soomaaliya wax ku kala goosin jirtay waa diriri jirtay dirirtu ma laha wain daa'ifataani min almu'miniina iqtatalu way diriraan dadku muslimiintu waa diriraan mu'miniintu waa diriraan wain daa'ifataani min almu'miniina buu yeeyay laba mu'miniina hadday dagaalamaan iyagoo muslimiina oo sunna ah oo shaaficiya bay dagaalamayaan taasuna gaalo kama dhigayso ma gaalnimo inay ku dhaceen dulmi bay galeen waa is dulmiyeen waa la kala xukumayaa cadaalad baa lagu kala xukumayaa kii maaragtay dulmiga geystayna waa la xukumayaa qofkii caddayn keentana waa la keentay waa lagu kala baxayaa waa laga heshiinayaa haddii kalena waa la iscafinayaa oo qofku ama xaqiisii baa loo qaadaya maxkamadda u qaadaysa ama isaga cafinaya oranay waa ku cafiyay mar haddaa qiratay oo lagu soo xukumay oo aad soo fadhiisatay khalaas waan ku cafiyey markaasaa quluubtu isu furmaysa quluubtu markaasay isu furmaysa ilaahayna subxaanahu wa tacaala toobada aqbalaya toobadu xataa waa on condition toobada ilaahay tiisa markaad u toobad keento shardi weeye inaad dhexdiinana ka heshiisaan ood iscafidaan ood xaqiinii kala qaadataan oo maxkamad kala martaan waa shardi toobadii kale waa rahman tahay ilaahay toobada wuxuu leeyahay anigu xaqayga waa kaa aqbalay laakiin qofkan hebel ah ee aad dulmisay soo heshiiya ama ha ku cafiyo ama xaqiisii celi labadaas mid un baad ku ka tigi karta labadaas mid maya xaqiina ma celinayo
isagina cafis kama dalbanayo dulmina waan galay mana qiranayo ilaahna ugama toobad keenayo qofkii dulmiga lagu sameeyana kama toobad dalbayo wax soconaya iyo adduunka wax ka socdo ma aha kadib dadkii gaalada ahaa sidaan sheegay Rwanda Hutu iyo Tutsi way ka heshiiyeen dadkii dhibaatada sameeyana way qabteen way muxaakamayeen maaha in jagooyin loogu abaalguday iyo xoolo oo maaha sida hadda inaga dhexdeena maaha suurtagal maaha marka waa la qabtay dadkaas ama hal cafiyo ama xabsi hal geliyo ama dadkii ay dhibta ku sameeyeen iyagu ha cafiyaan saasay ku dhamaanaysaa sheekadu laakiin abaalgud meesha maba yaalaba qarini meesha ma taalo meesha markii ilaahay lala heshiiyo oo dadku iyagu dhexdeeda Soomaaliya ay heshiiso ayay markaa dad heshiis ah oo ilaahayna la heshiiyey ayaa dawlad dhab ah oo sax ah dhisan kara ayaa dawlad sax ah oo dhab ah oo xaqiiqo ah oo run ah oo arkaanteedii leh dhisan kara marka horta ilaahay halala heshiiyo labo halala heshiiyo dadka dhexdooda waxba kama horeeyaan heshiis markii la heshiiyo dad heshiisa ayaa dawlad macna leh dhisan kara dawladdaas soo noqonaysaa marka hadalka kale aan kaga hadli doonaa insha Allah taala dawladdaas la dhisayo saddexdii qodobkaas ay dhiman dawladdaas ama berri baan ka hadli insha Allah taala ama munaasabo kale iyada waxay u baahan tahay dawladdaasu markaas dawladnimadaasu waa inay ku dhisanto cadaalad iyo kafaa'o dad hoggaankeeda u qalma oo ay dadku iyagu doorteen oo dadkaasu isku waafaqeen oo xornimadooda ay iyagu ku xusheen waa in la helaa oo aqoon iyo diin iyo karti lagu doortay dadkuna ay ku doorteen xornimadoodana ay ku doorteen islaamku cidna wax laguma khasbo aan dadku iyagu dadka madaxda waa doortaan dadku ma adooma ma Soomaali ma joogto sidii hadda wadamadii adoonsiga lagu sameeyay ee laha Mareykan oo kale 60 kontomeeyada iyo madowga waxa ma dooran karo dumarku waxa ma dooran karaan dadkaas waxa ma dooran karaan waxa wax ka jira ma jiraan waa inay dadku iyagu madaxdooda dooran karaan saasay islaamku ahaa marka dawlad dadku iyagu ay doorteen kuna doorteen diin iyo karti iyo cadaalad iyo waxqabad maxay tahay arrimaha laga rabaa dawladdaas maxay dawladdaasu talaabooyinkeedu tahay maxay qorsheedu tahay maxay ku dhisantaa marka kale aan ka hadli doonaa laakiin laba qodob weeye islaamka mas'uuliyadda dawladdu si ay sharciga ilaahay u hirgeliso laba way sharciga ilaahay wuxuu ku hirgelinaa laba way koow nabadgelyo inay keentaa laga rabaa mas'uuliyaddeedu nabadgelyo iyo deganaan baa laga rabaa baa lagala xisaabtamayaa labo waxaa lagala xisaabtamayaa dadka noloshooda inay wax ka bedesho marka gadaal baan insha Allah faahfaahinteeda uga imaan doonaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala tawfiiqda hana waafajiyo ummadan Soomaaliyeed muslimkaana ilaahay waxaan uga baryayaa inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala waafajiyo inay ilaahayna la heshiiyaan oo u toobad keenaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala kitaabkiisa raacaan u hoggaansamaan dad muslina weeye dad walaalo ah weeye ummad meel wada degan weeye inay ilaahay subxaanahu wa ta'ala aynu la heshiino walaalayaal ayaynu kow u baahannahay labana waxaynu u baahannahay dhexdeenna inaynu ka heshiino wixii aynu isku haysanana aynu maxkamad islaam ah oo culimo iyo dad diinta ilaahay nagu kala saaraya aynu banaanka ula nimaadno oo aynu nagu kala xukumo aynu ka heshiino oo ama maartay qofku xaqiisii u helo ama u cafiyo kii dulmanaana u maartay ama xaqiisii helo ka ahana la qabto oo waajibkiisa la mariyo halkaas marka page cusub lagu bilaabo page-ka cusub ayaa dawladnimo dhab ah ka bilaabanaysa dawladnimadaas loo baahan yahayna marka waxa weeye inay cadaalad iyo dad iyagu dadku ay doorteen oo keensadeen inay ku dhisnaato ama wixii inta ka duwan waxa weeye
la iska daba wareego meesheeda ha ku meeraysato ha lagu kala maaragtay adkaado ha lagu kala socdo qofba meel ha uu maaragtay ha u jiito taasuna meel ma gaarto ummadana naseexu maaha ilaahay tawfiiqdiisana waafajiyo sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh